iyadoo looga reebay waxyaabaha qaar si ay ugu habboonaato jilidda. haddana kadib markii la soo baadhay ee la xaqiijiyey qisadan dhabta ah, waxaa loo soo bandhigay sidii ay u dhacday. gaadmada kadiska ahu waa furaha. waa inaad si dhaqso ah u dhufato cadowga oo uusan helin fursad uu isku difaaco. hubso inaad goysay halbowlayaasha. ha cabsanin, hana jixin dhulka ku tuur oo dhaqso u gowrac. hana muujinin naxariis. lama degaanka waxaan u joognay tababarkana uu qaadanayna hal ujeeddo oo keliya, taasoo ahayd inaan ku noqonno Masar oo dawladda afgambino. waxaan diyaar u ahayn inaan dhib kasta u dulqaadanno alla dartii. dacwada islaamka mooyee wax kale oo aan dan ka lahayn ma jirin. waxaan noo bannaanaa laba mid uun, inaan dhimanno oo jannada aadno ama inaan dagaalka ku guulaysanno. waxaan ku ficnaa anigu shiishka, waxaana la ii tababaray toogashada. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيم. صدق الله العظيم. مصطفى walaalkaa wuxuu joogaa jannadii. waa inaad sidaa qalbiga ku qaboojisato. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيديبو تبارك أسعدا ولا ليال. أمير سفي عم بوسعدا. بارك الله فيكم. فديست. amiirku marmar ayuuna soo booqan jiray si uu u hubsado inaan diyaar nahay. wuxuu habeen nooga akhriyey wargeys ka soo baxay Qaahira, arrin ku saabsan halwadeenno masiixiyiin ah oo xabsiga la dhigay. waxaana lagu eedeeyey inay isku dayaan inay ku gaalayaan dad muslim ah istaal ay iyagu leeyihiin iyagoo ku soo jiidanaya shukaansi iyo lacag. kufaartu ha dhintaan. استجيا عموسى. taasi waxay anagoo dhan noo ahayd qalbi jab. waxay ahayd bisha Ramadaan. waxaan dhammaanteen dareennay inaan waajibaadkii alle gudan weynay. shucuur baana wada gashay. aniga waxay taasi ii ahayd sabab kale oo sii xoojinaysa cadaawaddii aan u qabay masiixiyiinta. masiixiintu waxay sheegtaan inay xaq ku taagan waxaan dhaar ku marray inaan soo afjarno shaaraynta masiixiyiinta qiimo kasta hanuu kacde. amiirku meesha uu ka saaray dagaal hubaysan inaan gallo. wuxuuse soo jeediyey inaan gallo dagaal cilmiyeysan, kaasoo ahaa inaan qorno kitaab xaqiijinaya in baibalka la bedelay oo aan la aamini karin. walaalayaal, maxaad samayn lahaydeen haddii ay tahay inaad qortaan kitaab xaqiijinaya in kitaabkooda la bedelay? oo yaa qoraya kitaabkan? maxaa kugu dhacay oo kitaabna miyaad ka baqaysaan? hooyaday waxay tidhaahdaa masiixiyiinta kitaabkooda waxay u adeegsadaan jinni bixinta iyo sixirka, oo qofkii akhriya kitaabkooda jinni baa dardari oo inkaar baa ku dhici. anigu akhrin maayo. maya taasu suurtagal ma ahan. ha murmin, hana inada doodin.
alle iyo maalinta qiyaamaha haddaad rumaysan tahay qaliil waa inaad samayso waxaan ku faro maya amiir qof kala raadi maya maya qaliil amiir waan ku baryayaa qof kale hawshan u raadi qaliil waxaan aaminsanahay in uusan jirin qof kale oo adiga hawshan kaaga fiican laakiin waxaad leedahay sidoodoo kale noqo oo u fikir sidooda oo kale noqo sideen taas u yeeli karaa igu amar inaan dilo dhammaan masiixiyiinta jooga masar laakiin ha ay oran kitaabka akhriso taaba xataa hay oran sidaad ugu qiiraysan tahay alle way muuqataa laakiin qiiradaasu way ku indho saabtay waxaana kaa lumay qiimayntii miyaadan arki karin haddaad hawshan dhammayso sharafta iyo xurmadda aad heli doonto waxaad noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee kashifa beenta masiixiyiinta iyo yahuudda waxaad bil kasto gunno u qaadan 500 geni aniga qudheeda ayaana kuu keeni waxaan ka soo guuray xaradii lamadegaanka oo waxaan ku soo laabtay guriga waxaa dhammaaday bil anigoon waxba qaban waryaada ciyaal maanta musalsalkii maxaa dhacayna naagtii maskiinta ahayd wiilkeedii baa u cararay xagga jidka oo waxaa jiiray maxaa dhacayna waad igu ciyaaraysaa iska dhig hooya shaaha oo kaalina la daawo miyaanan kun jarayda oran haddaan warana shirkigan qaliil gabadhu waa walaasha mushrikiin ugu dambayntiina waxaan go'aansaday inaan addeeco amiirka amarkiisa wayna ahayd inaan addeeco oo fuliyo waajibaadka uu siiyey ma aanan garanayn meel aan ka bilaabo markaan akhriyey towreedka waxaan ku arkay meelo yar oo iskhilaafsan laakiin waxaan sidhi kuwaas waxba ma tarayaan sababtoo ah qur-aankaba waxaa ka buuxa meelo sidaasoo kale iskhilaafsan haddii aan idhaahno khaladaadkan ayaa daciif ka dhigaya baybalka marka waxay noqonaysaa inaan qur-aankana sidaas oo kale u xukunno sidaas darteed waxaan ka raadiyey khaladaad kale oo waaweyn laakiin waxba ma aanan helin waxaan akhriyey baybalka oo dhan laakiin kama aanan helin wixii aan filayay inaan ka dhex helo kitaabka masiixiyiinta kuma jirto hal aayad oo sii sheegaysa imaatinka nebi lagu magacaabo maxamed xataa mid la yidhaahdo waxaan axmed kuu keenay waxaad u baahaneed qaliil qabso ma xaqiiqdii muujinayaan kitaabkanu wuxuu qorayaa 26 tixraac
oo tilmaamaya nebi maxamed sala allahu calayhi salaatu wasalaam tixraacyo ku jira towraadkii injiilka. maxaad kuwa mar hore ii tusi weyse? waxaan rabay marka hore inaad adigu aqriso kitaabka quduuska, markaasna yaa ka marmi karo waxaad ku soo gunaanado. qaliil wiilkayga, kitaabkan aad qoraysaa wuxuu noqon doonaa mid ka duwan dhammaan kutubadii laga qoray mawduucan. biidnillaah waxaan ka heli doonaa natiijo ifaysa. biidnillaah khaliil, waad arki doontaa. waxaan bilaabay inaan baaro dhammaan 26kii tixraac ee ku qornaa kitaabka, hase yeeshee midkoodna waxba iima xaqiijin. waxaan idhi, rabbiyow, anigu ma xaqiijin karo in baibalka la beddelay oo ma arkin meel qudha oo baibalka lagu sheegayo nebi maxamed. maxaan anigu u noolahay? yaan anigu caabudaa? waxaan isweydiiyey, hadduu baibalku xaq yahay, siduu noqonayaa mustaqbalka qur-aanku? labaduba xaq ma wada noqon karaan, waayo way iska soo horjeedaan. sidaas darteed waxaan bilaabay qoraal cilmibaadhisa oon ciwaan uga dhigay qur-aanku ma ereygii ilaahba. markaan dhammeeyey qoraalka, dherarkiisu wuxuu gaadhay 200 ilaa 300 oo bog. dabeedna waxaa maalin si kadis ah igu soo booqday amiirkii. fadlan halkan ku sug qaliil, wuu kuu soo bixi daqiiqad gudaheed. mahadsanid. الحمد لله آخركي وبالله وقرالكي. maxaa kugu dhacay khaliil? maxaad qoraysaa? ma waxaad ii sheegaysaa inuusan qur-aanka ahayn ereyga alleh? haddaadan i rumaysanin adiguba akhri. ma waxaad ii madanaysaa inaan ugu faraxsanaa natiijada ii soo baxday? waxaan kaa baryayay inaad arrinkan qof kale u xil saarto, oo mar kastana waxaad igu lahayd ilaah baa ku doortay. waa adiga midka eedda lahu ee ma ahan aniga. waxaan lacag badan kugu siinay inaad ka shifto beenta nasaarada kufaarta ah. maya adigaa ii diray inaan cilmibaadhi sameeyo, waana sameeyey. oo kitaabkooda waa kan xaqa ah. intaasoo keliya ma aha, oo xataa qur'aanka qudhiisa ayaa qiray in ciise masiixi uu yahay ilaah. hamus kuma dhicdid wax kale inaad tidhaahdid. waxaan kuu sheegay wax kale ha odhan mar dambe. wuxuu qur'aanku leeyahay ciise wuxuu ku sheegay misaal oo ku soo laabanaya duruuraha korkooda, wuxuuna xukumi doonaa dadka oo dhan. suuradda maa'ida, ciise wuxuu awooday inuu wax abuuro. suurat alcimraan, inuu bogsiiyo bukaanka. wuxuu soo sara kiciye kuwa dhintay. ciise wuu soo noqonayaa, oo sida qur-aanku sheegaya maalinta qiyaamaha isagaa xukumi doonaa dunida.
aniga imaqal hadda laga bilaabo aniga iyo adigu isma naqaano waan u sheegay kooxda inaa naga baxday kaafir haddaad maalaayacniga qof kale tusto aniga qudheeda ayaa ku dilaya kaafir kaafir قليل 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 laakiin waxaan idinku leeyahay jeclaada cadowgiidna u duceeya kuwa idin habaara wax wanaagsan u sameeya kuwa idin necab oo u tukada kuwa sida xun idinla dhaqma iyo kuwa idin dhibaateeyaba ha iska caabiyina kuwa sharka leh laakiin kii daanka midig idinku dhufta u duwa daanka kalena la dagaalama kufaarta waayo iimaan ma laha iyagu ula dagaalama sanad caabudayaasha siday idinla dagaalamaan la dagaalama kuwa aan alla rumayn dagaalama oo dagaalama xataa hadday yihiin aabbayaal iyo carruur badila kulanti wanaagsan maanta sharci baa kaa muuqde ma rabtaa inaad turub cayaarto ahla wasahlan timoti waa khaliil maya waa nabad waxaan doonaya inaan kula hadlo maalin waxaan wacay nin aan wada shaqayno oo aan ogaa inuu masiix yahay waxaana filayay inuu wax badan iiga sheegi doono injiilka laakiinse wuu baqay oo igu damiyey telefoonkii markaasaa waxaa dhacay arrin iga khalkhalisay waxaan ogaaday in layga xaday boorsadeedii gacanta oo ay ku jireen baybalkii iyo baasboorkaygiiba borsadeeda ma aragtay aye kaabo saaxiib borsadeeda meelaha ma ku aragtay war maxay tahay boorsadaad sheegaysid waa noocay laakiin waxaa iigu jiray teesaradaydii iyo baybalkii warya maadan bixin lacagtii teleefoonka soo noqo ilaahayow i maqal i tus jidkaaga waxaan rabaa oo weligay aan rabay waa inaan ku aqoonsado oo aan qalbigayga iyo naftayda oo dhan kugu adeego waan ku jeclaa tan iyo carruurnimadaydii noloshayda oo dhan waxaan ku jirtaa gacantaada ilaahayow waan wareersanahay waan kuu baahanahay waan ogahay inaad tahay ilaaha keliya ma waxaad tahay ilaaha muslimka mise waxaad tahay ilaaha masiixiyiinta haddii aad tahay ilaaha muslimka islaamka mooye wax kale oo dhan maskaxdayda ka saar haddiise aad tahay ilaaha masiixiyiinta qalbigayga iftiimi si aan kuu caabudo itus jidka itus xaqa waan ku baryayaa ilaahayow habeenkaas waxaan u seexday si aanan weligay u seexan markuu waagu soo baryey waan riyooday weli miyaad iga shaki qabtaa adigu yaa tahay waxaan ahay midka aad raadinayso ma xasuusan karo akhri kitaabka injiilka waan jeclahay haa waan ogahay way iga lumeen isaga iyo waraaqahaygii oo dhan kitaabku ma lumo istaag oo kabadhka fur halkaasaad ka heli
qaliil hooyo waxaan kaa codsanayaa inaad i cafiso hooyo waxaan rabaa inaad i cafiso si xun baan kuula dhaqmay anigoo aaminsan inaan haysto iimaan sax ah cafi bismillaahi raxmaan raxiim waa maxay maxaa kugu dhacay qaliil ilaah baa i tusay runtii ilaah aan maanta aqaano maaha ilaahan hore u caabudi jiray waxaa jira hal ilaah keliya haa hooyo wuxuuna i faray inaan ku jeclaado oo ku adeeco oo waa kuma ilaahanu waa ilaah runta qaliil iskuna muujiyey masiix ciise sida qur-aanka ku qoran jooji ka xaliye haddii lagu maqlo waxaa loo malaynaya inaad waalatay laakiin waa yeeli waxaad tiri laakiin hadalkayga ma aamintay maxaanan kuu aaminaynin weligaa sidanoo kale iimaan tixgelin soco gacaliye eebbe ku nici maayo ibidkaa waan ku saamaxay hooyo macaan waan ku saamaxay hooyo macaan waan ku saamaxay qalbigayga wuu isbedelay waxaa bedelay jacayl hurdadii waa ku noqon kari waayey oo soo jeeday ilaa aroortii wax kasta oo aan arkay wuu qurux badnaa waxaan rabay inaan hab siiyo oo dhunkado qof kasta oo aan la kulmo oo aan u sheego inaan jeclahay xataa kuwa masiixiyiinta ah ee igu yaqaanay inaan ahay nin gacanqaad badan oo seeflabood ah ha iga baqan waxaan ahay khaliil weli ma aanan furin saaxiib waxaan u imid inaan kula weli ma aanan hadlo furin waan ku baryayaa waxaan rabaa inaan ku weydiisto cafis waan ku baryayaa fadlan hadhow ila hadal waan ku baryayaa waan isbedelay maahii qofkii hore gaf baan kaa geli jiray waayo masiixi baa cafiya tahay waan isbeddelayaa uma qalmo inaad i cafiso balse fadlan i cafi iska kay saamax waan isbedelaye haleluuya waa maxay ereygaa micnihiisu gacaliya waad baran mar dhow maxaa kugu dhacay waan kale isbedelay halkan fadlan i cafi fadlan i cafi waan ku cafiyey kala halkan waan ku cafiyey kala halkan maalintaa laga bilaabo waxaa igu dhacay isbeddel dadkii i yaqaanay kuwaan la shaqaynayey dhammaan way arkeen isbeddelka ku dhacay noloshayda waxaan ahaa nin nacayb ka buuxo oo dilaa ah waxaan gubay kiniisado oo dukaamo ayaan dhacay dhibaato badan ayaan sameeyey laakiin masiixa ayaa noloshaydii beddelay markaan bilaabay inaan ku dhaqmo sida baibalkii farayo waxaan noqday qof jacayl ka buuxo hadda xor baan ahay wiilka ayaa i xoreeyey noloshu waa masiixa oo dhimashadu waa faa'iido waagii hore dhimashadu waxay ahayd wax xun oo argagax leh laakiin hadda dhimashadu ima xukunto hadda waxaan ku jiraa masiixa oo wax kastaa way cusub yihiin haramacadku miyuu barihiisa iska beddeli karaa limaax miyuu nabad la noqon karaa wan ninay ka buuxaan cadaawad iyo inuu cadowgiisa xoog ku afgembiyo ma qof nabadeed baa khaliilse waa la odhan karaa su'aalahanu marnaba kuma soo dhicin maskaxdiisa ilaa uu la kulmo amiirka nabadda sida ciise masiix suurtagal ma aha miyaa haa marka laga eega dhanka dadka suurtagal ma aha laakiinse xagga ilaah waa suurtagal waxaan xusuustay nin la odhan jiray saa'uul oo sida khaliil ahaa nin dagaal iyo dhib badan oo sida khaliil ahaa aqoon-yahan wuxuu u kacay tirtiridda masiixiyiintii ku noolaa dhulkii uu joogay oo wuxuuna ka qayb qaatay dilka qaar badan wuxuuse ogaaday inuusan la dagaalamayn dad balse uu la dagaalamayo ilaah wuxuu saa'uulkii cadhada iyo kibirka badnaa ku kalifay inuu sujuudo oo hoos isu dhigo murugana ku qayliyo yaa tahay adigu sayidow wuxuu rabbigu ugu jawaabay waxaan ahay ciise masiix
markaad la dagaalanto kiniisaddayda aniga ayaad ila dagaalamaysaa. ninkaa waxaa maanta loo yaqaanaa bawlos, waana kan qoray in ka badan kala badh axdiga cusub ee baibalka. maxaa saa'uul qalbigiisa beddelay? maxaa beddelay khaliilse? labadaba waxaa beddelay awoodda jacaylka. waana midda aan rabo inaan maanta kaala hadlo. ma jirto awood kale oo ka weyn. saaxiib, ilaah waa jacayl. sidan ayuuna baibalku leeyahay. ilaah waa kan wax walba ka awoodda badan, wax walba og, meel kasta jooga. laakiin sifa ahaan ilaah waa jacayl. ilaah ma rabo in qofna lumo, balse wuxuu rabaa in dadka oo dhamm ay la yimaadaan toobad oo gartaan runta. ilaah wuxuu rabaa inaan weligeen kula noolaanno jannada. waxa keliya ee laynaga rabaa waa inaan aqballo in ciise masiix uu yahay badbaadiyaheenna. si wanaagsan ii dhegayso. khaliil waxaa riyo ugu yimid ciise masiix, balse shardi maahan inaad adiguna riyo ku aragto ciise si aad u badbaaddo. badbaadadu waa hadiyad dadka oo dhan uga timaadda xagga ilaah. waxa keliya ee ilaah inaga rabaa waa inaan iimaan yeelanno. xataa iimaanku waa hadiyad ka timaadda ilaah. jacayl mooye maxaan ka fili karnaa ilaaha ina jecel? ma jeceshahay inaad hesho hadiyadda nolosha weligeeda? ma jeceshahay in dembiyadaada laga cafiyo oo aad ka mid noqoto qoyska ilaah? ilaaha jacaylku wuu ku maqlayaa, mana diido qofkii isaga ugu yimaado si daacad iyo run ah. khalad kastoo aad samaysay, ilaah weli wuu ku soo dhowaynayaa. isagu waa ilaaha jacaylka, oo jacaylkiisa kaamilka ahuna wuu maydhaa dhammaan dembiyadeenna. aniga ila tuko. ilaahay waad og tahay sidaan kuu jeclahay. ilaahaygay jecelow, dembiyadeeda iga cafi oo isii nolosha weligeeda. igu tiri inaan ahay mid ka mid ah kuwa nasiibka leh ee aqbalay inaad tahay badbaadiyahooda. sharaf iyo ammaan oo idil adiga ha ku ahaato dhiigga qaaliga ah ee ciise masiix aawadii. aamiin. walaalkay, walaashay, haddii aad ila tukatay, xaqiiqso in ilaah ku jiro noloshaada oo aad badbaadday. ciise ayaa noqon doona harraad tirka noloshaada. aamiin.